maxaa cashir oo xalay aan ka barnay kulankii u dhexeeyay kooxaha Manchester United iyo Liverpool. Kulankii xalay dhex maray kooxaha Manchester United Liverpool waxa uu ahaa kulan aad u xiiso badan oo laga dhaxlay casharo badan oo ay aragnimo wata. Waxaan idinku soo koobaynaa 8 dhacdo oo xalay aynu ka barnay kulankii Anfield. Ruben Amorim tactic ahaan waxa uu ka sareeyay dhigiisa Arne Slot. waan ogeyn in uu sanadkan ka sarmaray tababaro kasta oo ay iska hor yimaadeen. Kulankani waxa uu ahaa mid ka mid ah kulamada farakutiriska ee Arne Slot tactic ahaan lagaga sarmaray habeenkii xalayto. 2 لاعبينta kooxda Manchester United tayo kuma yareen haddii sida xalay oo kale ay u ciyaaraan ama ay ula ciyaaraan koox kasta oo ka hortimaada way la xifaaltami karaan. 3 kulankii xalay waxaynu ka baranay in koox kasta oo weyn ay dadku ku wiirsadaan ama ay ku shactiroodaan oo aad loo bahdilo kulan ka hor ay ka imaan karaan ama ay la imaan karaan isbedel. sababtuna waa xaalku wuxuu isku bedelay mid shakhsi ah. ciyaaryahan kastana naftiisa darteed ayuu u ciyaarayaa si uu sharaftiisa u ilaashado iskuna muujiyaa in uu laacib jira yahay. Trent Alexander-Arnold xalay foomkiisii ugu wanaagsanaa kuma jirin. dad badan ayaana dhaliilo u soo jeediyay laakiin waxa ay cadaalad darro ah in laacib weyn sida Arnold oo kala lafdhabar waa kooxda Liverpool in lagu dhaliilo hal ciyaar oo ay ka jiiftay xalay. 5 Gakpo iyo Magalista haddii ay dhalin lahaayeen fursadii ay heleen 10 daqiiqo ee ugu horeysay waxaa dhici kari lahayd in Liverpool kulanka si raaxo leh ay u qaataan, laakiin adkaysigii ay muujiyeen ciyaartoyda Man U daqiiqadii hore kulankan ayaa sabab u ahayd in la hanjibiyo ciyaartoyda kooxda Liverpool. mid 6 xidigaha qadka dhexe ee kooxda United Kobe Mano iyo Ugarte xalay si wanaagsan ayay u ciyaareen, gaar ahaan Ugarte si weyn ayuuna ugu dhex muuqday qadka dhexe. mid 7 kooxda Liverpool qatarteeda dhabta mid laacib kaliya ku tiirsan ma ahayn oo laacib kasta oo garoonka ku jira khatar ayuu sameyn karay. tusaale Man U waxaynu dhihi karnaa dhanka weerarka waxaa furo u ahaa Bruno, laakiin Liverpool habeen kasta laacib ayay ku baxsadaan sida Salah oo inta badan furo u ahaa habeenada qaar kooxda waxa ay ku baxsataa Magalista, xilliyada qaar Arnold, mararka qaar Robinson, Gakpo, Diaz iyo si lamida xidigaha difaaca oo naftigooda gool laga filan karo. waana sababta ka dhigtay in ay kulankan dib u soo noolaadaan. ugu dambeyntii nambarka 8 wariyaanka kooxda Manchester United Rasmus Hojlund waxa uu u baahan yahay tababar joogto ah si uu kulan walba kaga soo dhex muuqdo goolalna u dhaliyo. inkastoo xalay la arkay fursado gool loo filay in uu qasaariyo, laakiin mar walba wuxuu u baahan yahay tamar joogto ah. 8daas waxyaabood ayaynu ka baranay kulankii xiisaha lahaa ee xalay u dhexeeyay kooxaha Manchester United iyo Liverpool. haddaba daawade maxaa adigu laftirkaaga ku muuqday? fariintaada qaybta hoose noogu reeb. mahadsanidin.